السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أصحاب قيمة بدن كسر بعض مقال عزب. مقال كمان تي وحن كجهد للدونا ميت كمذا دعوينكي وجهد الحين تبضنيد جودها ذلك الجبان لبعتن كيسنة وجودن بيسي. كدي مركي جوري كمذا جورياشي مقالة طوكيو لو جود احتاجي غير أيجا أودن لولاي سوى حوش نماء. ميت كمذا وحيابي سوجي تي درين كبوليس كي باري كيس كان وحوها عديمه ألابتي وجوري كان كجد احتاجي قفكي غير كان أجلي سدتان مدة أو أي رجينيين إن حالين دعددن ay aad u fududeen doonto balse markii ay si fiican u sii baareen kiiskan waxa u soo baxday in tani aysan ahayn sida ay filanayeen si ay tahay dabin uu u dhigay dambiilahaasi si marna aan gacantaasi loogu soo dhigin niyadana ku hay mawduuca maantay waxa ka buuxa su'aalo badan balse jawaabahoodu ay yar tahay una baahan in si fiican loo dhuuxo sida loo xalin lahaa bal adiga daawanaya ma xalin kartaa ay kula tahay aan isla aragno sheekada muuqaalkan aan gudagalno Miyazawa Mikiyo iyo xaaskiisa Yasuko waxa bilowgii 90kii soo degeen xaafad lagu magacaabo Kamiso Shigaya oo qayb ka ah magaalayareeda Shitigaya ee caasimadda Tokyo, Japan. waxaana meeshaasi ugu dhashan doona gabadhooda Nina oo marka dhacdadan foosho xun ay qabsan doonto reerkan ahaan jirta 8 sano iyo wiilkooda Rey oo isna 6 jir ah. xilligii ay xaafadan soo degayeen waxay ahayd mid aad u camiran oo qiyaas 200 oo guri ay ka dhisan tahay. balse wixii waqtigu sii socdaaba dadkii dariska ahaa waxay bilaabeen in xaafadii ay isaga guuraan waxaana dhulkoodii ka ibsatay dawladda dhexe oo iyagu qorsheynayay in xaafadaasi oo dhan gabigeedii la baabi'iyo laguna daro Soshigaya Park oo ahayd darjiimo lagu nasto oo meeshaasi ka agdhaweyd. tabiiqadii sanadii 2000 oo ah marka ay dhacdadan qabsan doonto reer Miyazawa waxa xaafadaasi ku haray oo kaliya 4 guri mid ka midana waxa badagneyd Yasuko walaashid ka weyn oo magaceedii lagu sheegay aan laakiin gurigii aan intiisa badan waxa joogtay oo kaliya hooyadeed iyo walaalkeed oo iyagu bilowgii 2000 ka soo laabtay dalka Ingiriiska intiisa kalena wuxuu ahaa mid iska cidla ah maadaama aan seegeeda uu ahaa mid ka shaqeeya dibadda oo inta badan wadanka ka maqan. qorshuhu wuxuu ahaa in labadan reer ay ayagana meeshan isaga guuraan oo xaafado kale ay ka raadsadaan waxaana la sheegaa in Mikiyo iyo Yasuko ay bawaa hore iska iibiyeen gurigooda si wali aynan toos u guurin oo ay laba shakin ku jirto. nasiib xumo go'aankoodan ahaa in gurigan ay sii joogaan wuxuu ahaa mid aad u xun oo halis aan kalaabasho lahayn geliyay reerkooda oo dhan waxaana 30kii December 2000 ku dhex qabsatay gurigooda dhacdo dhammaan reerkooda ka xayuubin doonta dunida dacladeeda. booliiskii tagay halkaasna ay ku tilmaameen inay tahay mid ka mid ah dhacdooyinkii ugu naxariista darneed ee ka dhaca dalka Japan ama gudaha Tokyo. subaxnimadii 30kii December waxa booliiskii Shitigaya ay ku waabariisteen koolka dhacdadan oo sida ila badan ay sheegayaan ay soo wacday hooyada Yasuko oo joogtay guriga gabadheeda weyn ee aan. kadib markii booliisku ay tageen goobtii waxa markii ugu horeysay ba ku hor yimid meydka aabihii reerkan Mikiyo oo isagu ku kala toornaa faloorka koowaad ee guriga waxa jirkiisa oo dhan ku yeelay dhaawacyo midi oo aad u tiro badan intooda badanna waxa lagaga dhuftay dhanka birida iyo cajarka halka qaarka kalena ay kaga yeeleen labada gacmood feeraha wajiga iyo dhaawaca ugu xun oo dhanka madaxa ahaa oo xitaa keentay in mididii lagu dhuftay gabalkeeda uu ku soo haro lafta madaxiisa oo ay jabto. kadib markii ay u sii gudbeen dabaqa ama faloorka labaad waxay ugu tageen canugii reerka ugu yaraa Rey oo isagu sariirtiisa korkeeda lagu ceejiyay. qofka kaliya ee ceeji lagu dilayna wuxuu ahaa Rey oo isagu jirkiisu oo dhan kuma oolin wax dhaawac ah. banaanka qolkii lagu dilay Reyna waxa ku kala tuurnaa labadii qofood ee reerkan ka haray hooyadii reerka Yasuko iyo curudeeda Nina oo iyagu mar kale la barbar dhigo Rey iyo aabahood Mikiyo aad uga darnaa midida ugu badneedna iyaga ayaa lagu dhuftay waxaana inta badan dhaawacooda uu u badnaa xagga wajiga iyo qoorta oo aad looga dilay. sidoo kale Nina waxa ka maqnaa qaar ka mid ah ilkaheeda oo sida la qiyaasayo ku baxay feer ama wax kale oo lagaga dhuftay. guriga intiisa badan waxa buuxiyay dhiig reerkan oo iyagu habeenkii ilaa subaxii isaga dhiig baxayay. sida la qiyaasayo dilaaga reerkan wuxuu markii ugu horeysay guriga ka soo galay daaqadii yar ee suuliga ku tiilay dabaqa labaad isagoo markiiba ku leexday qolkii uu degnaa canugu yaraa ee Rey oo suuliga dhan ka saarnaa deedna uu sidii ugu dilay ceeji. kadib markii Rey uu dilayna wuxuu soo aaday dhanka iyo faloorkii koowaad oo uu joogay aabihii reerka lana qiyaasayo in xilligaasi uu shaqo iyo wax la mid ah ku jiray deedna uu isagii sidaa ku dilay. wixii ka dambeeyay wuxuu mar kale dib ugu soo laabtay dabaqa labaad oo uu ku dili rabo hooyadii iyo gabadheedii oo iyagu markii hore jiifay sariir u tiilay
qaybta sare ee saqafka guriga wuxuu dhowr jeer ku dhuftay mididii jabneed ee uu sitay koor inta uusan mar kale dib ugu laaban jikadii guriga asagoo meeshaasi ka soo qaatay midi kale sidiina Yasuuko iyo gabadheedii ugu dhameystiray kadib markii dilaagii uu wadalayay reerkan wuxuu u soo degtay dhanka iyo dabaqii koowaad ee guriga sida laga dheehan karay raadadka cagihiisa iyo gacmihiisa oo dhiig badan lahaa wuxuu dhowr jeer ku noqnoqday jikadii guriga isagoo firijeerkii kala baxaya ice cream wuxuu kaloo inta uu meeshaasi joogay sameystay koob shaah ah kadib wuxuu soo aaday xafiiskii yar ee aabaha reerkan uu ku lahaa guriga isagoo meeshaasi kala baxay qaar ka mid ah dukumentiyadii reerkan wuxuu kaloo soo qaatay alaabaha yaryarka ee ay lahayd Yasuuko oo boorsadeedii ugu jiray sidoo kale walletkii lacagaha uu ku qaadan jiray ninkeeda Mikio iyo furayaashii guriga isagoo markii dambe dhammaantoodiiba ku wada shubay godka suuliga uu markii hore guriga ka soo galay oo ahayd suuligii ku tiilay dabaqa labaad waxaa kaloo ninka ilaabay intii uu dilaagii joogay guriga reerkan wuxuu dhowr daqiiqo isticmaalay kombiyuutarkii Mikio isagoo sida booliiska ay sheegeen booqday barta mid ka mid ah theatriska Japan uga caansan waxaana la qiyaasaa in uu gurigii joogay ilaa iyo 7:20 saqbarkii habeenimo ugu dambeyn uu ka soo baxay halkaasi wixii xilliga ka dambeeyay inkastoo dad badan ay aaminsanaayeen in dilaagii uu guriga reerkan joogay ilaa subaxii dambe maadaama sida riboodka booliiska lagu daabacay kombiyuutarkii Mikio mar kale subaxii uu shidnaa internetkana lagu xiriiriyay adigu siday ahaataaba qofkii dilay reerkan wuxuu ugu dambeyn ka cararay gurigii isagoo cidna aysan arag subaxii xigayna hooyadii dhashay Yasuuko oo iyadu markaasi joogtay saan hore u soo sheegnayba guriga gabadheedii weyneed oo daris la ahayd Yasuuko ayaa booliiskii la soo xiriirtay una sheegtay in reerka gabadheeda aanay saakay gurigoodii ka soo bixin dhowr jeerna ay u qeylisay samarna aan loo jawaabin albaabkooduna uu quful saaran yahay dabcan ma ahayn dabci reerkan lagu yaqiinay oo waxay ahaayeen dad subaxii hore u kala shaqadooda almuhim kadib markii booliisku ay yimaadeen dhacdadii foosha xumeed ee halkaasi ka dhacdayna ay diiwaan geliyeen waxaa la bilaabay ururinta caddeyn kasta oo ku hagi karta cidda reerkan sida naxariis darada ah u gashay su'aasha markan u baahnayd in jawaab loo helana waxay ahayd waa kuma qofkan maxaase keenay in sidan wuxuushnimada ah ku jirto uu ku dhaqaaqo ama reerkan uu u dilo maadaama dil nuucan oo kale ah aan xilligaasi horey loogu arag gudaha Tokyo koox aad u tiro badan oo booliiska ka mid ah ayaa gacanta loo geliyay kiiskan in ay xalkiisa keenaan maalmihii ugu horeysay kiiskan wuxuu u muuqday mid aad u fudud oo laga salgaari karo maadaama qofkii dilkan geystay uu cadeemo aad u fara badan uga dhex tagay gurigii cadeyntii ugu horeysay ee baaritaan lagu sameeyay waxay ahayd dhiigga dilaaga oo laga helay mara yar oo la filayo in uu iskaga tiray dhiigga dhaawac yar ee soo gaaray markiisii ugu horeysay waxaa la soo saaray in dhiiggiisu uu ahaa ee blood type baaritaanada kale ee la qaaday waxaa ka mid ahaa fingerprintiska ama calaamadaha farihiisa oo isna meelihii uu gacmihiisa ku taabtay laga helay booliiskii ayaana ku dhawaad 5 milyan oo qofood farahooda ku sameeyay baaritaan dadkaasi la baaray ayaa waxay isugu jireen dariskooda iyo dadkii kale ee ka agdhawaa sida dadkii ay meelaha iskala shaqayn jireen ilaa qof kasta oo joogay magaalada qaybta ay degnaayeen si nasiib darro xitaa lama helin qof ay isku ekaadaan marka kuwaasi laga soo tago sidoo kale dilaagan wuxuu guriga reerkan uga dhex tagay wax badan oo ka mid ah alaabtii uu sitay haddaysanba kuligooda ahayn waxyaabihii dadka indhahooda soo jiitay waxaa ka mid ahaa boorso yar oo kuwa lagu xaragooda ah taa oo markii ay booliisku dib u raaceen la ogaaday in asal ahaan naqshadan lagu soo farsameeyay dalka South Korea waxaana lagu dhex iibiyay gudaha Japan intii u dhaxaysay 1995 ilaa 1999 oo ka dhigan in uu ugu yaraan hal sano u isticmaalayay qofkan waxa kaloo alaabtii uu ka tagay ka mid ahaa cimaamad yar oo iyadu aad loogu wareeray halka ay asal ahaan ka timi waxna booliiskii garan waayeen cidda soo saartay inkastoo sida xogag badan ay tilmaamayeen cimaamadaha noocan oo kale ah si bilaash ah lagu siin jiray dadka booqda qaar ka mid ah goobaha geemiska lagu ciyaaro inta oo dhan waxa aad uga muhiimsanaa oo dadkii kiiskan isha ku hayay ay farta ku fiiqayeen kabihii uu ka tagay dilaagi kabahan ayaa waxa soo saartay shirkadda Salazingas oo asal ahaan laga leeyahay dalka Ingiriiska modelka kabahanna waxa qaas ahaan loogu sameeyay wadanka South Korea inkastoo kabaha noocan oo kala ah lagu iibiyay gudaha Japan haddana size-ka kabihii uu sitay qofkii dilay reerkan waxa lagu dhex iibiyay oo kaliya gudaha South Korea oo ka dhigan in qofkan uu kabahaasi ka soo iibsaday dalka South Korea niyadan ku hay waa cadeyntii labaad ee dhanka South Korea la xiriiriyo kabahan oo kaliya ma ahayn waxyaabihii shakiga weyn dhaliyay ee sidoo kale fanaanadii uu ka tagay iyadoo laftirkeedu ma ahayn mid zaa'id looga dhex isticmaalo gudaha Japan qiyaas 130 xabo oo kaliya ayaana inta la og yahay lagu dhex iibiyay gudaha dalka Japan alaabtii kale ee guriga uu uga dhex tagay waxa ka mid ahaa koofid
jaakad madow ah, golofis iyo surwaal oo dhammaantooda si la mid ah kuwii hore dib loo tixraacay. sidoo kale markii DNA-ga dhiiggiisa ay dib u baareen waxaa u soo baxday in qofkan uu yahay qof ka soo jeeda cirqi ahaan South Asia, taa oo ka dhigan in ama uu Japan u dhashay ama Korea ama China. ku dhawaad 1.3 milyan oo qof oo ay ku baareen gudaha dalka Japan waxay heli waayeen qof ay isku DNA yihiin dilaaga ama xitaa reer ahaan ugu agdhow, taa oo keentay in marar badan booliiskii Japan ay kuwii South Korea ka codsadaan inay iyagana ka baaraan DNA-ga ninkaasi bulshadooda laga yaabee qof ay isku eg yihiin in laga helo oo reerkiisa ah. nasiib darro dowladdii South Korea way ka diiday arrinkaasi. adigu booliiskii Japan waxay gacanta ku hayeen cadeymo aad u badan, balse nasiib xumo cadeen ku hagta dilaagaasi ma jirin ama xitaa qof u yara dhow oo looga shakin karo in reerkan uu sidan foosho xun u galay. waxaana mid qof kasta uu isweydiiyo ay noqotay sabab, bal maxaa keenay in qofkaasi uu reerkan laayo, weliba sidan foosho xun inta midi uu qaato jirkooda ula dhaco haddii xiriir uuba kala dhexaynin. waxaa jira dad badan oo aragti ahaan u soo jeediyey in 3 midkood ay sabab u tahay oo ninkaasi ku dhiirigelisay in ficilkaasi uu sameeyo. dad baa waxay fikrad ahaan u soo jeediyeen in ninkaasi ay u geysatay fulinta dilkan lacag, oo uu islahaa maadaama reer shaqaysta ay yihiin lacag badan ayaad ka soo heli doontaa gurigooda. inkastoo aragtidan ay u muuqato mid caqligal ah, haddana waxaa jiro mid shaki weyn gelinaysa, maadaama la soo ogaaday in dilaagii uu guriga reerkan ka qaatay oo keliya 150,000 oo yen, oo haddii dollar ahaan loo bedelo noqonaysay xilliga 1,500 oo dollar oo keliya. suuragal ma tahay in qof reer oo dhan uu u dilo si 1,500 uu uga qaato oo keliya? haddana dil iska caadi ah ma ahayn ee si cunfi ah uu u dilo weliba. sidoo kale waxaa shaki sii gelinaysa in ninkan uu guriga kaga tegay 190,000 oo yen, qiyaas markaasi noqon lahayd 1,800 oo dollar wax ku dhow. haddii uu lacag u baahan yahay si fiican inta uu u raadiyo oo tanna kuma darsan lahayn, taa oo markaasi nagu soo ridaysa aragtida labaad iyo dadka qaba in ninkan ay waxaan oo dhan u geysatay ciil dartii, ciil uu reerkan u qabo. waana midda keeni karta in ninkan uu si naxariis darro ah weliba cunfi ku jiro uu reerkan u dilo. waxyaabaha ugu caansan ee fikraddan xoojinaya ayaa ah reerkan waxay ku noolaayeen xaafad inteeda badan iska meel lagu ciyaaro ah oo buuq badan. kaaga sii daran gurigooda dhabarkiisa dambe waxaa ku tiilay meel ay weelisha ku ciyaaraan skateboardka. sida laga soo xigtay dariskooda, aabihii reerkan Mikio ayaa waxay marar badan isku dhaceen qaar ka mid ah wiilasha meeshaasi imaanayay. waxaa macquul ahayd in qayladooda uu dhibsaday. saa darteed waxaa mid suuragal ah u muuqatay in mid ka mid ah wiilashaasi oo odigan ama reerkan oo dhan ciil u qaba inuu falkan ka dambeeyey. inkastoo aragtidan ay booliisku ka soo horjeesteen kuna tilmaameen mid daciif ah, maadaama wiilasha halkaasi ku ciyaari jiray ay degnaayeen xaafadaha u dhow reerkan, sidoo kale dadkii degnaa dhammaan xaafadihii ka agdhowaana gurigaasi ay baareen farahooda misna ay heli waayeen qof u dhigma farahaasi. saa darteed waxay ku tilmaameen mid aan macquulgal ahayn in wiil xaafadaasi degan uu reerkan sidan u galo. haddii kale waa la soo heli lahaa oo kale. si kasta oo ay ahaato, haddana weli dad badan ayaa aaminsan fikraddan. almuhim, siday doontaba ha noqotee, waxaa mid shaki weyn laga muujiye ay tahay sababka dilaaga uu dharkiisa inta badan kaga dhex tegay guriga dadkii uu dilay. yacni ma ka cabsi qabin miyaa in dharkiisa dib loo soo raaco, gacanta lagu soo dhigo, mise waxay ka ahayd tactico oo uu booliiska ku jahwareerinayay? aniga ahaan waxaan isleeyahay maadaama dharkii ninkan wixii cadeen laga heli karo la daba raacay lana soo heli waayey qofka uu yahay, waxay ahayd tactico uu ku wareerin rabay booliiska. waxaaba macquul ila ah in dharkan uusan asaga lahayn ee uu ahaa dhar uu meelaha ka soo ururiyey kadibna uu gurigaasi isaga dhex tegay si booliiska ay ugu mashquulaan raadkiisa dhanna ayba u helin. inaad maqasho dhacdo nuucan oo kale ah reer gebigooda dunida dhan laga cirib tiray hal goor waa mid saameyn iyo murugo badan kugu reebaya. inkastoo qaabka reerahaasi ay u cirib tirmaan ay kala duwanaan karto oo qaar ay fududahay in la ogaado waxa laayay, halka reero qaarna xitaa la garan waayo waxa ku dhacay oo ay ku dhammaadeen, sida reer Booyar oo mar dhexdaasi aan qisadoodii cajiibka badneed kaga soo hadalnay muuqaal. haddii qisada reerkaasi aadan weli daawan, halkan ayaan kuu soo dhigayaa oo daawo. runtii waa mid la yaab badan kugu reebi doonta sidaan aaminsanahay.